isticmaalka baraha bulshada ayaa si weyn sanadihii ugu dambeeyay aad ay ugu soo kordhayeen dadka Soomaaliyeed gaar ahaan aaladaha casriga barta TikTok oo kamid ah meelaha ugu caansan waqtigan ee geyga Soomaalida gaar ahaan dhalinyaradu meelaha aad u daneeyaan ayaa waxay saameyn badan ku yeelatay nolosha dhalinyarada waxaana soo baxaya warar kala duwan oo sheegaya in laga yaabo in la xiro bartan oo adduunka qayb kamid ah hadda laga mamnuucay haddaba saameyn intee la eg ay dhalinyarada Soomaalida arrintan ku yeelan kartaa waxaan la kulanay mid kamid ah dhalinyarada ku sugan magaalada Hargeysa ee aadka u isticmaala warbixin arrintan ku saabsan waxa nooga soo sameeyay Xamse Dabaare ماما مليون جدي من كبير سيدات بريسا ماما مليون حلاب تاخر مركز قبضت الحلاب يا قصدي بقى يارو يبقى بابا مليون ومقالي حسيان انت بدن dadka ku xiran bartu caan ka yahay TikTok Nasir Ibrahim Arrale oo caan ku ah engineer hudhud waxa uu kamid yahay dadka sida weyn u isticmaala aalada TikTok waxana uu ka hadlayaa sida TikTok ugu duwan yahay baraha kala duwan ee bulshada horta waxaan oran karaa TikTok waxay ku jirtaa maanta aalada loogu isticmaalka badan yahay waqti xaadirkan Soomaalida marka imika way soo fahmeen aad bay ugu badan yihiin wallahi waa iska yartay qof Soomaaliya oo aan isticmaalin TikTok hata waayelka imika isticmaala hadba waxay xiiseeyeen dadku waxa cusub hore loo yiri wixii cusub caalamka jecel waxa jirtay waqti Facebook u shidnaa magaalada oo qof aan bila Facebook aan jirin taabadalkeeda imika TikTok ta haysata meeshii hadda waqti xaadirka programka loogu isticmaalka badan yahay san hore u sheegay waa TikTok inkastoo Soomaalidu si weyn u isticmaasho baraha kala duwan ee bulshada haddana bilihii ugu dambeysay waxay Soomaalidu si xoog ah u isticmaalaysaa aalada TikTok haddii aalada TikTok la joojiyo saameyn intee lag bay ku yeelanay waxa meesha ka baxaya sakinadii xaraabaadka badnaa ee qosolka badnaa waa meesha ka baxaya Soomaalidu sameyn jireen waxay ahayd TikTok waa 60 sakin oo mucjise aan oran karo 60 ka sakin bay daawanaysaa 100,000 mararka qaar milyan bay daawan karaa oo aad bay uga baawar weyntahay media kale anigu imika TikTok waan ka wareegay xaga YouTube kan wareegay intaan la soo oran anigu labadaba waan ka ridi jiray marka hore dhinacan YouTube kana waan ka riwaayada ka matali jiray filmaanta iyo challenge-yadii waxa dhinacan kalena hawlaha kale ka wadan jiray aniga maanta hadii macal la joojiyo already intaan ka gaari karin waan ka gaaray TikTok ayaa kamid ah aaladaha ugu isticmaalka badan la dunida iyagoo muddooyinkii dambe si aad u isticmaaliyay bulshada Soomaaliyeed hase yeeshee waxa soo baxayay in dalalka qaar ee dunida lagu joojinayo adeegsiga aaladani Xamse Dabaare RTN TV Hargeysa